munaasabadan xil wareejinta ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka degmada Afgoye ahna duqa magaalada Cabdullaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo gudoomiye waaxeedyada degmada, waxaana lagu soo dhaweynayay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda degmada Afgoye. Ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka iyo maaliyadda degmada Afgoye, Maxamed Nuur Gaabow. isleeyahay nin aniga positionkii aan joogay inuu iga sii dheereey ma ogi ka gaabin doono inuu yahay rajayna maamulka degmada oo aan muddo soo wada shaqeynay dhammaan waxaan leeyahay inta aan wada joognay aad iyo aad u mahadsantihiin. shaqo wanaagsan oo walaalnimo iyo asxaab aan ku wadno ayaan soo wada qabanay, waan idinkaga mahadcelinaa. intii shaqada ay socoto waxa waaye dad markay shaqo hayaan wax yar waa la is qabtaa, wixii oo intaas shaqooyinka dhexdooda aan isku qabanayna ka raalli ahaadaan idin leeyahay is cafino. aniga xaggayga cafisa ka tihiin maamulka ama gudoomiye ku-xigeenka cusub oo aniga hadda maanta i bedelaya waa nin dhalinyaro ah oo fresh ah oo maanta raba in uu asigana kulley meeshii aan ka waday inuu ka sii qabto, inaad la shaqaysaan. Ibraahim asigana waxaan dardaaran aan leeyahay gudoomiye dhalinyaro ah iyo nin oday oo qabiir ah oo asigana oo odayaal qabiir ah oo Mahdi iyo Ismaaciil ayaa ku jooga kaaga horeeyay meesha, ina adigana aad ka mid noqoto wax walban xal iyo nabadoonnimo lagu wadaa. adigana inaad kaalintaada doorkaaga taas qaadan doontaa rajaynaa insha Allah. anigana Afgoye waxa waaye xilkaan ma ahna xilal badan aan ka soo qabtay. Afgoye markaan waa ka dhamaaday, markaan xilal waaweyn aan keenaa insha Allah. aadaan u mahadsantihiin. gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda degmada Afgoye, Ibraahim Xasan Cali, ayaa dhankiisa sheegay in halkeedii ka sii wadi doono hawsha xafiiska gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Afgoye, isagoona qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada ka dalbaday inay la shaqeeyaan. waxaan u mahadcelinaa maamulka Koonfur Galbeed anoona kala qaadayn heer gobol heer state. sidoo kale waxaan u mahadcelinaa maamulka degmada ugu horeeya gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa bulshada ka soo qayb gashay. insha Allah si gooni oo u fariisan doonaa wada hadlayna hadduu Ilaahay idmo. bulshada iyo maamulkaba maxaa la yiraahdaa aadaan ugu mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina. waxaan sidoo kale si gaar ah ugu mahadcelinaa gudoomiye ku-xigeenkii iga horeeyay ee maamulka iyo maaliyadda degmada oo run ahaantii gudoomiye kaliya aan ahayn oo nin oday ahaa in muddo ah shaqooyin kalena waa soo qabanno waa soo wada shaqeynay. waan rajaynaa insha Allah in shaqadii uu bulshada u hayay sida ay noo ahayd. gudoomiyaha maamulka degmada Afgoye ahna duqa magaalada Cabdullaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe oo mas'uuliyiintan maanta xilkan u kala wareejiyay ayaa dhankiisa sheegay in ay la shaqeyn doonaan ka maamul ahaan gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda degmada, isagoona alle uga baryay in uu mas'uuliyadan u fududeeyo. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyihii hore ee maamulka iyo maaliyadda degmada Afgoye saaxiibka Maxamed Nuur, howlihii adkaay oo degmada ku soo qabtay. wuxuu ku waday saaxiibkeen waa nin oday oo ahay oo dhaqanka iyo wax walba isku hayay. waxaan u rajaynayaa horumar iyo meeshan iyo meel kale ka sii fiican inuu hiigsado. walaalkeen isagana waxaan rajaynayaa insha Allah inuu howshaas culayskeeda leh inuu la wareego. odaytinimadii oo saaxiibka Maxamed Nuur ku waday isagana inuu ku wado. dadkii familkii iyo dadkii maamulkii baasha odaytinimo lagu wadaa inuu ku wado. dhalinyarnimo ay qaadin anaga dhalinyaraan nahay laakiin Afgoye waxay u baahan tahay idana xasaasi ah, waxay u baahan tahay in la isku haayo. wax badan oo culays oo arki doona insha Allah. waan kula qabanaynaa, garabkaaga nahay, hawsha waan kula wadeena. sida Maxamed Nuur aan garab taagnaa adina waa lagu garab taagnaana. wax walba culays ah waa lagu fulinaa insha Allah. waxa waaye Afgoye ku soo dhawow qof deegaan ah mudan wax bartay dhalinyaro ah aad tahay qof ka mudan ma lahan insha Allah waa garabkaaga nahay soo dhawow. Maxamed Qadar Warsan Radio Shabeellaha Hoose.